Manchester United ayaa guuldaro lama filaana kala kulantay kooxda kubadda cagta Brighton and Hove Albion ciyaar ka dhacday garoonka Amex Stadium. Tababare Jose Mourinho iyo wiilashiisa ayaa mar kale isku dhaxyaacay iyagoo hadda looga maadeysanayo baraha bulshada. Qaraxa Tube ayaad kala socotaan warbixintan, fadlan subscribe la channelkeena, like saar una share garee asxaabtaada si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta. Warbixintan waxay ka hadlaysaa afar waxyaabood oo sabab ah guuldaradii soo gaartay Manchester United. Tan ugu horeysa waxa ay tahay go'aanada macallin Jose Mourinho sida aan ognahay waa tababare go'aano adag. Waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda u baahan inuu kursiga kaadka geliyo. United safkeeda waxaa maanta ka maqnaa Alexis Sanchez, kaas oo kulamada qaar ee muhiimka ah kooxda caabiya. Waa ciyaaryahan raacasho badan, inta badanna haya kubadaha. sidaas darteeda Sanchez ciyaarta maanta qayb kama ahayn. Waxaa kursiga kaadka Manchester sidoo kale ka muuqday ciyaartooyda qadka dhexe ku wanaagsan sida Andre Herrera iyo Marwan Fellaini. Waxaana bedelka ciyaartooydaas laga doorbiday ciyaaryahanka lagu magacaabo Pereira iyo xidiga cusub ee la yiraahdo Fred. Taasna waxay keentay in shaxda dhexe ee Manchester ay isfahmi waayaan. labo dhaawacyada kooxda United waxaa ka dhaawacan ciyaaryahano muhiim ah oo ugu horeeyo kabtankooda Antonio Valencia ayaa dhaawac kaga maqan kooxda kubadda cagta Manchester United. Eric Bailly xaaladiisa ma wanaagsan inkastoo kulankan uu ku soo bilowday, haddana qaladaad badan ayuu sameeyay difaaca dambe ee kooxda Manchester United. Sidaa darteeda dhaawacyada soo wajahay United saameyn ayuu ku lahaa kulanka maanta. saddex maqnaanshiyaha Nemanja Matic markii uu dib ugu soo laabtay koobka adduunka ee 2018 si toos ah uma bilaabin ciyaarista kubadda cagta sababtoo ah khaliin ayaa lagu sameeyay muddo bil ayuuna garoomada ka maqnaan doonaa. Ciyaaryahanka Serbiyaanka ah ayaa muhiim u ahaa kooxda kubadda cagta Manchester United, waana mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan qadka dhexe. Maqnaanshihiisa maanta aad ay u tabeen Manchester United. tan afraad ee ugu dambaysa difaaca bidix ama nambarka saddexaad ee qaybta difaaca Antonio Valencia ayaa ciyaaray booskaas balse waa u maqnaa. Luxshaw cadaadis badan ayuu la kulmay, weeraro badan ayaana lagu qaaday ciyaaryahanka da'da yar ee Ingiriiska. sidaas darteeda maadaama uusan haysan la qabsasho fiican ee qaybta difaaca bidix, waxaa ku adkaatay inuu joojiyo weerarka afraaflaha ee kooxda kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion.